Trump iyo wiilashiisa oo suuqa kriptada ku ciyaarayo xaqiiqda la qarinayo. Suuqu wuxuu noqday mid galay jahwareer isaga oo bambi aan dambi sameynayo muddo 48 saac gudihiisa ah, taas oo walaac badan ku beertay maalgashadayaasha suuqan. Donald Trump iyo wiilashiisa oo bilaabay in ay suuqan xakameeyaan iyaga oo boost ay soo dhigay Trump suuqa kriptada uu korukac waali ah sameeyay. Kadibna saacado kadib aan aragnay in uu suuqa hoos u dhac weyn uu sameeyay kadib markii uu Trump soo saaray war ah in canshuurtii uu kusoo rogay dalalka Canada iyo Mexico iyo Shiinaha uu fulin doono 4 bisha Maarso, taas oo keentay haddana walwal hor leh oo suuqiina saameeyay. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa dhinacyo badan. Waxaan kula wadaagi doonaa sida Trump iyo wiilashiisa ay suuqan ugu ciyaarayaan iyo xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan keedka istiraatiijiga ah ee uu sheegay Donald Trump inuu u sameynayo kriptada, ujeedka iyo caqabadaha ka hor imaan karo ma suurtagal baa mise waa arrin khayaali ah. Ramadaan Kariim saaxiibayaal, kusoo dhawaada Horyaal Solution. Haddii ay markii kugu horeysay ay tahay ee aad soo booqato channelkeena, waxaan ka hadalnaa wax walba oo la xiriiro dhaqaalaha iyo maalgashiga suuqa kriptada iyo sida lacag looga sameeyo online-ka. Subscribe noo saar channelka, muuqaalkana like saar saaxiib si aad ula socoto wax walba cusub ee aan soo dhigno. Waad ku mahadsantahay. Trump iyo keedka istiraatiijiga ah ee kriptada. Dhowr maalmood ka hor Trump wuxuu soo dhigay boostigan aad aragtaan sawirkiisa idiin muuqdo isagoo ku sheegayo abuurista keed istiraatiiji ah oo loo sameynayo lacagaha kriptada. Sida aad boostiga ka aragto, midka hoose kuma uusan xusin Bitcoin, wuxuu kaliya uu xusay XRP, Solana iyo Cardano. Hal saac kadib ayuu dib u reposti u sameeyay si uu meesha u soo geliyo uu u xuso Bitcoin iyo Ethereum sidaad ka aragtaanba sawirka. Maxay tahay sababta Trump uusan marka hore u xusin Bitcoin? Ma lacagaha uu marka hore xusay baa kuwa uu maalgashigiisa inta badan gashaday, mise kooxdiisa la shaqeynayso ayaa maalgashi ku leh lacagahan? Caadiyan dowladuhu waxay doorbidaan lacagaha ay xakameyn karaan, taasoo ka dhigayso lacagahan mid u dhow baahida dowladda. Bitcoin waa lacag aan la xakameyn karin, ma lahan dowlad ama urur gooni ah oo maamusho, waxaana loo yaqaanaa Bitcoinku inay tahay lacagta dahabka dijitaalka ah, halka XRP, Solana iyo Cardano ay yihiin lacagaha si xurmaysan loo maamulo oo leh shirkado ama kooxo horumariyaal ah oo si dadban ama toos ah u xakameeyo. Tusaale ahaan haddaan ka soo qaadano, waxaa ka mid ah lacagta XRP, waxaana iskale oo maamusho shirkadda Ripple ayaa iskale. Xaqiiqdu waxa ay tahay in Trump uu suuqa u adeegsanayo danihiisa gaarka ah si uu lacag uga sameeyo isaga iyo ilmihiisa iyo kooxdiisa la shaqeyso. Annagana aan nahay dadka lacagtooda la cunayo haddii aan si xakamadeysan suuqan u maalgashanin oo aan hadalkiisa ku shaqeyno. Ujeedka rasmiga ah ee keedka istiraatiijiga ee kriptada. Si aan si sax ah u fahanno, aan marka hore eegno meesha fikradan ka timid iyo waxyaabaha la filayo inay qabato. Bishii July 2024, shirkii ka dhacay magaalada Nashville ee Mareykanka, Bitcoin Conference 2024 ayaa lagu casuumay Donald Trump isaga oo halkaas khudbad ka jeediyay, taasoo uu ku sheegay in haddii uu ku guuleysto doorashada Mareykanka in uu kriptada u aqoonsan doono keyd istiraatiiji ah uuna sameyn doono Bitcoinka. Wuxuu sidoo kale sheegay in dalka Mareykanka uu milkin doono Bitcoinka si uu u noqdo xarunta ugu weyn ee kriptada, Washington DC-na ay noqon doonto caasimadda kriptada. To ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon,
I want America to be the nation that leads the way, and that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with it. sidoo kale wuxuu xusay in kiribtadu ay noqon karto mid uu Mareykanka u adeegsan doono in uu ku bixiyo deymaha lagu leeyahay. waxaa la shaaciyay qorshihii rasmiga ahaa ee crypto reserve, taasoo sababtay in bulshada kiribtada ay u aragto arrin guul weyn ah oo suuqa kiribtada u soo hooyatay. qorshuhu wuxuu dhigayaa in sanad walba ay dowladda Mareykanku iibsato 200,000 oo Bitcoin ah muddo 5 sano ah, taas oo ka dhigan in Mareykanku uu milkin doono 1 milyan oo xabo oo Bitcoin ah, oo u dhiganto 5% boqolkiiba in uu haysan doono Mareykanka guud ahaan tirada guud ee Bitcoin-ka oo ka kooban 21 milyan oo xabo. tani waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa sahayda Bitcoin-ka guud ahaan suuqa, laakiin caqabadaha jira awgeed qorshahan ma hirgeli karo. maxaa caqabad ku ah qorshaha kaydka kiribtada? marka aan si qoto dheer u falanqeyno, waxaan fahmi karnaa sababta dad badan ay u arkaan in Trump uusan awoodin in uu abuuro kayd kiribta ah. ma ahan mid ka mid ah mudnaantiisa koowaad ee siyaasadeed ee dhabta ah, ka mid ma aha, sababtoo ah waa arrin u baahan ansixinta Koongareeska Mareykanka ah, maadaama arrintan ay tahay go'aan dastuuri ah. Trump wuxuu og yahay in Koongareeska Mareykanka uusan ansixin doonin, balse suuqa weli uu aaminsan yahay rajada been abuurka ah. si go'aankan uu u fulo, waxaa loo baahan yahay 5 meelood in ay ansixin laga helo si loo dhiso kaydka istiraatiijiga ee kiribtada ee Mareykanka. waa in laga helo ansixin in laga helo Koongareeska Mareykanka. 2 waa in madaxweynaha Mareykanka uu ansixiyaa. 3 waa in ay wasaaradda maaliyadda ansixisaa. 4 waa in bangiga dhexe ee Mareykanka uu ansixiyaa. 5 waa in guddiga amniga iyo sarifka ee loo yaqaan Security and Exchange ay ansixiyaan. 5taas meel iyadoona laga haysanin ansixin ma hagaagi karo kaydkan kiribtada. aragtida qaar ka mid ah khubarada suuqa, Arthur Hayes ninka la yiraahdo, wuxuu rumaysan yahay ilaa hadda in aysan jirin oo kaliya ballanqaadyo, in aysan jirin wax kaleento oo ay jiraan kaliya ballanqaadyo oo aanan jirin wax xaqiiqo ah oo ku saabsan kaydka kiribtada. wuxuu sidoo kale sheegay in Koongareeska aysan ogolaan doonin mashruucan, taasoo ka dhigayso mid aan suurtagal ahayn. ka hor intaan la sameyn crypto reserve, waa in marka hore la helaa ogolaansho dib loogu qiimeynayo qiimaha dahabka gold revolution. ninka la yiraahdo Peter Schiff, isagana sidoo kaleento oo ah nin falanqeeya dhaqaale caan ah, wuxuu xitaa ku eedeeyay Trump inuu fududeynayo khiyaanada suuqa market fraud, taasoo niyad-jab ku ah mustaqbalka kiribtada. Trump wuxuu suuqa u adeegsanayaa xeelad manipulation ah si uu lacag uga sameeyo. markaan si dhow u fiirino qoraalada uu Trump soo dhigo boostiyadiisa iyo falcelinta suuqa, waxaan arki karnaa inuu isticmaalayo xeeladan loo yaqaano bump and dump, oo loola jeedo bamgareyn oo kor inuu aado suuqa kadibna daadin oo hoos haddana inuu soo aado. maalin gudaheeda waxaa dhacay xawaaro sare oo maalgashi ah. suuqa ayaa kor u kac sameeyay kadib markii boostigu soo dhigay, kadibna maalintii xigtay hoos u dhac weyn ayaa haddana dhacay oo suuqii oo dhan ayaa hal mar wada dhiig noqday oo riid noqday. maxaan ka baran karnaa arrintan? marka la eego dhammaan xogtan, kaydka istiraatiijiga ee kiribtadu waa arrin suurtagal noqon karo, balse ma aha sida degdega ah ee Trump uu ka dhigayo. ha rumaysanin hadallada siyaasiyiinta si fudud. hubi xaqiiqda marka hore. ha u ogolaanin in lagu khiyaameeyo, manipulation lagu sameeyo. u fiirso xogta dhabta ah. suuqan kiribtadu wuxuu leeyahay fursado lacag looga sameeyo, sidoo kaleento khasaarooyin badan ayuu leeyahay. waad ku weyn kartaa lacagtaada oo dhan. marka aad maalgashi sameynayso, waa inaad taxadar lahaataa oo taxadar
dhab aad u samaysaa markii aad maalgashanaysa saaxiib. Muuqaalka intaas ayuu nooga egyahay saaxiib. Ku soo biir channelkeena oo subscribe saar saaxiib. Sidoo kaleento muuqaalka like saar. wixii su'aalo aad qabtana iyo ra'yigaagana qaybta commentiga nagula wadaag saaxiib. inta muuqaal mid lamid ah aan kulmi doono waxaan kaga tegaynaa. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.